dollar aan walaashayda Siciida Aweys oo maamada guriga ah aan ku wareejinay caruurta agoonta hooyadood ah marka waxaan idin leeyahay wax badan ayaa iska bedelay dareenka qoyskan oo ah agoon filashada farxadooda maalinta ciidu aysan ahayn mid wanaagsan daqiiqado ka hor xilligan waxaan la joognaa qoyska Allah u naxariistay walaalkeen Axmed Dawlo oo bishii September ee sanadkii 2018 lagu gubay magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaaqshid maanta halkan waxaa yimid fanaanka Qadar Ibrahim Kayow oo qoyskan iyo caruurta agoonta ah kala qayb qaadanaya farxadda isla markaana soo gaarsiiyay deeq lacageed oo ugu talagalay isaga iyo gabar Soomaaliyeed in ay caruurtan agoontaahi ay ku ciidaan si markaasi ay u helaan farxadda caruurta kale ee asaagooda ah ay helayaan hooyo Siciida Aweys oo halgan adag ugu jirta korinta 8 caruur ah oo ay u dhashay marxuum Axmed Dawlo kana fikirsaneed farxadda caruurteeda agoonta ah ee ciida ayaa ka gudoontay fanaanka Qadar Kayow lacag dhan $500 Mareykanka oo isaga iyo gabar walaashiisa ay ugu talagaleen in caruurta agoonta ah ay ku dareemaan farxadda caruurta asaagood ah ee maalinta ciida faraxsana ala lacagtan تريدنا وهم باهنين أنا فرحسناي فنانك Qadar Kayow iyo mas'uuliyiin kale ayaana tagay guriga qoyska marxuum Axmed Dawlo ay ku nool yihiin halkaas oo lacagta uu kula wareejiyay maama Siciida Aweys ayaa sheegtay in lacagtan aysan filaynin wax badanna ay ka bedelayso farxadda caruurteeda walaalkay Qadarna aad iyo aad ugu mahadcelinaya iyo gabadha asaga garabkiisa ah insha Allah iyo dhalinyarada isoo booqatay intaba intii walaalo Soomaaliyeed isaacidabo waxaan leeyahay ciid mubaarak lacag $500 khayr ilaahay ha siiyo wuxuusan filaneen ilaahay meel gaaban ha ogsi insha Allah asaga iyo walaashiisa garabku ah ma sha Allah si fiican ma filaneenin ilaahay waxaan filaneenno khayr badan Allah siiyo insha Allah aadan ugu mahadcelina ugu duceynaya ma sha Allah wax badan ay ka bedelaysaa farxadoodan aad ay u farxayaan ugu ciidi doonaan insha Allah fanaanka Qadar Ibrahim Kayow ayaa sheegay in deeqdan lacageed ee qoyskan uu ku wareejiyay ay isaga iyo walaashiis kaga qayb qaadanayaan farxadda caruurtan yar ee agoonta ah isagoo ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay caawiyaan kuwa caawinaad u baahan waxaan u soonahay inay nagu soo foodeysaa ciid barakeysan bisha Ramadaan aan ka sii bixin ciidna aan galayno waxaan maanta u imiday walaalkeen Axmed Dawlo Allah u naxariistay caruurtiisii uu ka geeriyooday agoonta ah waxaan deeq lacageed ugu talagalnay aniga iyo walaashayda Kaltum deeqdaas aan u keenay maanta waxaana waajib naga ah sida aan ogsoonahay diinteenuna fartay in caruurta agoonta laga farxiyo haddii aad awood u leedahay marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaa leeyahay caruurta agoominta waqti halala qaato bisha barakeysan ee Ramadaan ama maalinta ciid nagu soo foodeyso waa mahadsantiin dhabaantiin Maxamed Idle raadiyaha iyo telefishinka Dalsan Muqdisho